السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada muslimiinta meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkani ma og tahay waxaynan kusoo qaadan doonaa maanta xayawaano ay mamnuuc tahay in la dilo nebigu صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود والدارمي ibn cabbaas waxaa laga wariyey ilaahay raalliha ka aday isaga iyo aabihii baynuu yidhi wuxuu reebay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasallam in la dilo 4 xayawaan quraanjada shinnida hudhudka iyo shimbirka suradka loo yaqaano waxaana soo saaray xadiiskan abu daawuud sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu ku leeyahay عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد أبو هريرة waxaa laga wariyey ilaahay raalliha ka ahaadee inuu yidhi rasuulkii ilaahay صلى الله عليه وسلم wuxuu reebay in la dilo shimbirka suradka loo yaqaano raha quraanjada iyo hudhudka waa maxay xikmadda loo diiday in la dilo xayawaanada tan aynu ku horumarno quraanjadu waa xayawaan ama cayayaan aan dhib badan u lahayn bani'aadamka waana xayawaan u nool sida bani'aadamka waxay leedahay guryo dabaqyo ah oo ay u hooyato suuqyo ay wax ku kala iibsadaan iyo maamulayaal iyo boqorad wada maamusha dhammaantood dhanka kale quraanjadu waxay ka mid tahay xayawaanada ugu cibaadada badan waxaa laga wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ha dilina quraanjada maxaa yeelay nebi sulaymaan ayaa maalin roobdoon sameeyey markaasuu arkay quraanjadii oo madaxeeda ku fiirinaysa cirka sidoo kalena lugaheeda sare u taagtay oo leh ilaahayow khalqi ka mid ah abuurkaaga ayaanu nahay kamana maarmayna dheeraadkaaga ilaahayow hanoo qabanin dembiyada addoommadaada khaldamay noona keen roob noo soo saar dhir naguna quudi midho markaasuu dhahay nebi sulaymaan dib u noqda waa laynagaga filnaaday laygunana roobeeyey xadiiskana waxaa soo saaray daarulqutni iyo xaakim waxa kale oo jiray qiso kale oo nebi ka mida nebiyada ayaa wuxuu geed hoostii ayuu seexday kadibna quraanjo yar ayaa u timi markuu nebigaasi u marayay hurdada meeshiigu macaanayd markaasay quraanjadii qaniintay kadib markii uu soo kacay ayuu nebigaasi gubay dhammaan quraanjadii oo dhan markaasuu ilaahay u soo waxyooday subxaana wa tacaala oo uu ku dhahay bal maad quraanjo yar oo keliya hal xabba ka dishid xadiiskana waxaa soo saaray labada shiikho waa muttafaqun calayhi oo labadii wadaad baa isku waafaqay waa imaamu albukhaari iyo imaamu muslim xayawaanka kale aynu soo qaadanaynaana waa shinnida lama dilayo sababtuna waa nafciga iyo khayrka ay u hayso bani'aadamka iyadoo samaysa malabka oo ilaahayna ku tilmaamay inuu malabkaasi dawo u yahay dadka oo dhan waxaa kale oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu magac daray suurad dhan oo qur-aanka kariimka ka mid ah waa suuratu naxli xayawaanka kale aan la dilaynina waa hudhudkuna waa xayawaankii isaga awgii ay soo hanuuneen qoom dhani wuxuu nebi sulaymaan calayhi salaam u diray inuu warqad ku tuuro boqoradii reer saba ee balqiis la dhihi jiray ugu dambaynna boqoradii way islaamtay waxayna soo gashay diinta xaqa ah sidoo kale hudhudka lama cunayo hilibkiisa maxaa yeelay haddii shay la xarimo dilkiisa waxa kaloo la xarimaa cunidiisa xayawaanka kale aan la dilaynin waa shimbirka suradka loo yaqaano suradkanina waa shimbir ay dadkii carbeed ay ku baasaysan jireen magaciisa iyo codkiisaba sidaas darteed waxaa la xarimay dilkiisa kol haddii la mamnuucay dilkiisana ma bannaana hilibkiisu xayawaanka kale aan la dilaynina waxaa weeye raha sababtuna waxa weeye waa xayawaanka adduunka ugu tasbiixda badan waxaa laga wariyaa nebi daawud calayhi salaam inuu nebi daawud u maleeyey in cid aan isaga ahayni aanay si wanaagsan u ammaanin ilaahay subxaana wa tacaala ama siduu u ammaano cid la mid ah aanay jirin markaas baa loo soo diray malag ka mida malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo jooga qolkii
markaasuu malagii u yimi oo wuxuu ku dhahay bal hadda waxaad nebi daawud u dhegaysataa raha kan waxa uu ku dhawaaqaya ama uu ku hadlaayo kolkuu dhegaystay ayaa wuxuu maqlay rahi oo leh subxaanaka wabixamdika muntaha cilmik markaasuu nebi daa'uud cajabay isagoo leh waxaan ku dhaartay ilaaha iga yeelay nebiga weligay sidaas oo kale umaan ammaanin dhanka kale waxaa la soo arooriyaa in rahaasi uu yahay waxa ugu alla ka cabsiga badan oo maalin baa raha waxaa la sheegaa in uu isku tuuray dabka cabsi uu ka qabo ilaahay subxaanahu wa tacaala darteed kolkaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu beddelay rahaasi inuu ku noolaado biyaha qabow iyo codkiisana uu ka dhigay codka tasbiixda ilaahay weyneynaya oo ammaanaya sidoo kale waxaa la soo arooriyaa in ciddii disha raha lagu leeyahay neef lax ah ha joogo xaramka ama meel kalaba sidoo kale xayawaanada aan dhibta ku haynin bani aadamka ama aan hilibkoodiyo cunidoodu aanay bannaanayn kuwaasna waa mamnuuc in la dilo shareecada islaamka wallahu aclam ilaahi baana og intaynu ku kulmi doonno barnaamijkeennan ka xigana waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu